Maxaa keena in qofka markii uu furto YouTube uu ka niyad jabo isla markiiba? Waxyaabo badan ayaa keena iyo caqabadooyin kala duwan, laakiin maanta waxaan rabaa muuqaalkan inaan uga hadlo caqabadaha ugu badan ee loo joojiyo YouTube amaba loogu niyad jabo markii uu qof dhalinyaro ah bilaabo. Haddaba, muuqaalkan qaybihiisa dambe waad la yaabi doontaa iyo sababaha iskaga dhaafaan dhalinyarada YouTube-ka ee dhammayso. Haddii aad muuqaalka heshaan like inoo saar. Haddaba, aan u guda galno siyaabaha iyo waxyaabaha ay u joojiyaan dhalinyarada inta badan markii ay bilaabaan YouTube. Caqabadda koowaad waa in uu qofka doortaa niche uusan jeclaysan. Haddii qofka uu doorto niche uusan jeclaysan, xitaa kuma qancayo in niche-kaasi uu muuqaal ka soo sameeyo, sababtoo ah niche-kaasi maba ahaan mid uu ku fiican yahay. Marka hore dooro niche aad jeceshahay. Haddii qofka uu doorto niche uusan jeclayn, xitaa markii uu research sameynayo uu ka hadlayo waxyaabaha uu channelkiisa kusoo gudbiyo ama niche-kaasi uu qaabilsan yahay, uu ka niyad jabayaa maxaa yeelay kuma fiicno. Haddii lacala qofka uu yahay qof muuqaal sameeye ah, haddii loo dhiibo niche ka duwan muuqaal sameynta oo ah in qofkaasi uu ka hadlo dhanka challenge-yada ama dhanka wariyinimada iyo waxyaabahaas oo kale, uu ka niyad jabayaa xitaa markii uu research sameynayo ilaa ay ku qaadato sanado fara badan. Caqabadda labaad oo ah in qofka dhalinyarada ah uu marka horeba u soo galo in uu YouTube-ka si degdeg ah lacag ugu sameeyo. Sidaasina wuu ka guda ballaaran yahay YouTube-ka oo wuxuu u baahan yahay YouTube-ka in aad joogtayso ood ka hadasho waxyaabo ay dadka jeclaystaan. Laakiin haddii aad marka horeba u soo gasho YouTube-ka inaad lacag degdeg ah ka sameyso, ma noqonayso oo xitaa YouTube-ka wuu ku dareemi doonaa. Haddii aad isticmaalayso muuqaalo kale oo dad kale ay leeyihiin, xitaa YouTube-ka wuxuu kugu qaban doonaa copyright. Caqabadahani waa caqabado fara badan oo dhalinyarada inta badan waxay jecel yihiin kaliya inay lacag si fudud ku sameeyaan, kadibna YouTube-ka ayay imaadaan, muuqaalo yaryar ay soo geliyaan, kabacdi markii ay arkaan inaysan lacag ka sameyn karin way iska dhaafaan. Caqabadana waa caqabad weyn oo jirto. Marka iska ilaali inaad marka hore YouTube-ka u soo gasho inaad lacag ka sameyso. Horta marka hore YouTube-ka u soo gal inaad muuqaalo soo geliso oo dadka ay wax ka faa'iidaan, kabacdi lacagta waad sameynaysaa. Labadaas caqabadood ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee inta badan YouTube-ka 95% ay dadka u joojiyaan. Marka muuqaalkina maanta intaas ayuu ka egyahay. Waxaa inoo balan ah muuqaalka xiga insha Allah.